السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan oo kale ay ka bixiyeen go'aankii golaha wasiirada Israa'iil saaka aroortii ay soo saareen oo ay ku sheegeen inay ku qabsanayaan magaalada Gaza taasoo macnaheedu yahay in dagaalo hor leh halka ay ku qaadi doonaan. haddaba falcelinta dalalkaasu ay ka sameeyeen arrinka waa idin hayaa. xuutiga oo maanta la sheegay mar kale inuu weeraray Israa'iil. ciidanka Israa'iil oo faahfaahin ka bixiyay weerar kaga yimid dhanka xuutiyiinta waa idin hayaa. Lubnaan oo ay ka bilaabatay taageerayaasha Xisbullah iyo ciidamada dawladda oo maanta isfara saaray. haddaba ma bilowga dagaalo culus oo dhex mari doona Xisbullah iyo Lubnaan dawladeedii ma Israa'iil iyo Mareykan siday doonayeen miyaa ka hirgashay. haddaba tafaasiil ku saabsan xaaladda Lubnaan oo maanta kacsan ayaynu barnaamijka qaybta dambana ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirno wixii wararaya soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa, balse waxaa naga xasuus ah in maanta ay ahayd maalinimo jimco ah. channelkeena kale qisooyinka Nadaara 2 waxaan soo gelinay qiso cusub oo aad si weyn ugala socon doontaan macluumaadka iyo arrimaha qisooyinka dadka jecel channelka ay booqan doonaan. waxaana linkiga soo dhigi doonaa qisadan cusub qaybta commentiska iyo fariinta ugu koreysa ayaa ku dhufanaysa si aad qisada ay ka damacsan tahay Gaza. dawladihii reer galbeedka gaar ahaan kuwii Yurub kulli way ka digayaan, waxay leeyihiin arrinka ha sameynina qatara ka dhalan karta. waa dawladihii Yurub oo dhan, Turkiga, dawlado badan ayaa waxay leeyihiin arrinka ayaan la sameynin. haddaba dawladahaasu qatarta ay arkaan maxay tahay? go-aanka waa ka sheekeynay barnaamijka Isaakaan uga hadalnay inay yidhaahdeen Gaza waa qabsanaynaa. waa tii Netanyahu uu yidhi markaan qabanno Xamaas ka sifayno kadib aan Carab ka wareejinayna. iyo ciidankii oo laleeyahay ma awoodi karaan inay Gaza qabsadaan, inkastoo ciidanka amar la siiyey oo ay shaqada isku dayi doonaan, haddana madaxdooda ciidanka waxay leeyihiin taas suuragal ma ah. warara marka soo baxay hadda soo kordhay laleeyahay waxaa farataagtaag xun uu ka dhacay kulankii dhex maray wasiirada ee Netanyahu u fadhiyay 10 saacadood ayuu kulanka qaatay. saan barnaamijka hore ku sharax. wasiirada qaar abaanduulaha laga celcelinaya, farahay ku taagayaan, way ku qaylinayaan. abaanduuluhu wuxuu leeyahay warukaaday ciidanka halaaganina, meesha haddii la galo waxbaa dhici doona. may abaanduulihii hadda wuxuu taagan yahay ciidanka wixii aan gelin karnaa waa gelinaynaa, wixii ka dhaca waa arkaynaa. sheekadu marka halkaasi maray abaanduulihiina shirar iyo waxaasuu hadda wadaa sidii bal loo yarayn lahaa laga hadlaa khasaaraha ciidanka, maxaabiistana loo ilaalin lahaa, bal inaysan wax dhibaataa gaarin, Gazana loo qabsan lahaa, Xamaasna hubka looga dhigi lahaa, looga adkaan lahaa. intaas marka meel ma isla gelaysaa? maye intaas ma isla socon karto, in wax laga tanaasula waayo. marka sheekadu halkaasi maray. marka waxaa leeyahay dawladihii waaweynaa oo dhan arrinkaa way cambaareeyeen. Netanyahu iyo kooxdiisa waxay yidhaahdeen waxa aad ku dhaqmaysaan wax sax ma. hadda iyo dagaalo cusub iyo duqaymo cusub aan ku samaynaynaa dadka masaakiinta iyagaba gaajo u dhimanaya, dee wax la aqbali kara maaha. laakiin adduunka oo dhan wuu cambaaraynayaa. Netanyahu cambaarayn ma qoraa isaga iyo kooxdiisa? may waxaas ma ka hadlo isaga mama uun gacanta la qabana joog la dhaha. may cambaarayn maahane waxa rabtaan sameeyo, waxa uu ka cunayaan male. haddaba marka aan idin tuso Al Jazeera waxay leedahay dawlada waaweyn ayaa cambaareeyay tallaabada Israa'iil ay ku doonayso inay ku qabsato Gaza, inay ku qabsato. haddaba marka wararkii ugu dambeeyay sheekada waxaa leeyahay falcelin ayaa ka timid dalal waaweyn oo Yurub ka tirsan go-aanka Israa'iil ay ku sheegtay inay ku qabsanayso Gaza. dawladda Denmark wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa sheegay inay tahay Israa'iil inay go-aanka ka laabato arrinta Gaza ku saabsan. wasiirka arrimaha dibadda Spain wuxuu cambaareeyay qaraarkaas ama go-aankaas Gaza lagu qabsanayo, wuxuuna sheegay taa inay horseedi doonto burbur hor leh oo ka dhaca Gaza iyo dhibaato. wuxuuna ku baaqay in xabad joojin degdeg ah la sameeyo, gargaarkana loo ogolaado in la geliyo Gaza, maxaabiistana la sii daayo. wasiirka arrimaha dibadda ee Norway
ayaa isaguna sheegay in Israa'iil qabsashada ay qabsanayso marinka Gaza oo kulligiis ay doonayso inay markaa noqon doonto ku tumasho lagu tumanayo oo aan la aqbali karin qaanuunka caalamiga ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Holland ayaa isaguna sheegay in Israa'iil sii xoojinta iyo dagaalka ay ku hayso Gaza oo la sii xoojiyay ay qalad dhinaca bini'aadanimada tahay ayna keenayso sida uu yiri arrimo bini'aadanimo oo dhibaato xun ay halka ka dhici doonto. wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden ayaa isaguna wuxuu sheegay in markaa arintani ay dhibaato hor la keeni doonto ayna tahay in xabadda la joojiyo. wuxuuna sheegay in sheekada Gaza in la qaadanayo ay tahay qaanuunka dawliga lagu xadgudbay. wasiirka arrimaha dibadda ee Belgium ayaa isaguna u yeeray gabadha safiirka Israa'iil u ah fadhida wadanka Belgium wuxuuna weydiiyay in markaa ay arrinka faahfaahin ka bixiso. waxayna u muujiyeen Belgium inay si weyn uga soo horjeedaan in la qabsado Gaza oo markaa laga dhigo dhul Yahuudo ay leedahay in markaa laga dhigo in markaasi ay diideen. haddaba dhanka kale Scotland iyo Shiinaha ayaa iyaguna cambaareeyay qaraarka Israa'iil. haddaba dhanka kale wakaaladda wararka ee Faransiiska waxay sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu ay markaa muujisay dhibaatada iyo cabsida ay ka qabto tallaabada Israa'iil ay sheegtay inay ku qabsanayso Gaza. waxayna ku baaqday in arrinka laga hortago. Gazana waxay sheegtay Shiinuhu in ay dhul Falastiin ay tahay oo markaa cid xoog ku qaadanaysa oo laga ogolaanayo aanay jirin marka la eego xaaladaha hadda jira. Turkiga ayaa isaguna ku jira, Ingiriiska ku jira, kulligood way cambaareynayaan. laakiin cambaareyn maxay ka taraysaa? Netanyahu sidii ay rabeen isaga iyo kooxdiisa mayalka adag go'aankii way soo saareen. Gazaan qaadanaynaa dheheen, macnaheedu weeraro cusub aan ku qaadaynaa, duqaymo cusub aan ku samaynaynaa. iska qaada ma dada wax kala dhaxeeyaan marka ciyaar ma marka waa in dagaal kale lagu qaado. ciidankii laftirkiisa niyad jabsanaa la soo geliyo. dhibaato badan markaa hawsha halkaas maraysa. dhanka kale waxa leeyahay waxa ballansan iyaguna is arki doona wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. arinta ugu weyn ee ka hadli doonaan waa Gaza. Ukraine arinteeda iyaduna way ka hadli doonaan, laakiin arinta Gaza iyo sidii Netanyahu iyo kooxdiisa waxa ay wadaan looga hortagi lahaa ayaa laga hadlayaa. marka caalamka oo dhan marka waa u jeedaa meel kasta gees kasta arrinkaa waa laga xun yahay, laakiin cid wax ka qabanaysa ma jirto. macalinka weyn ayaa wax ka qaban kara, joog dhihi kara nimanka, isagina fasaxo siiyey. ninkii Trump ahaa waaba fasaxay, wuxuu yidhi Gaza waxaa rabtaan ka yeela, sheekadeeda laga dhaafo. Netanyahu iyo kooxdiisa Gaza saa rabtiin yeela, iyaguna marka go-aankay rabaan iska soo saarayaan. waa ka sheekadu marka halkaas ay maray. qodobka halkaas aan kaga gudbaynaa, bal go-aankii way gaareen, meeshay wax ka bilaabaan aan aragno. ciidankii maanta sharar ay leeyihiin aan leeyahay banduulihii iyo saraakiil kale, bal meeshay wax ka bilaabaan waynu arki doonaa. muqaawamaduna saan xalay ilaa shalay sheegaya waxay leeyihiin waaba sugi la-aan helay ha soo galaan, waxaan kala helnaa leena. meeshaas marka waa la isu midiya afaysanaya, xaalku marka meel xunuu maraya. qodobka kale ee barnaamijka galabta oo jimcahan kusoo qaadanayna wuxuu yahay goordhow war ayay soo saareen ciidanka Israa'iil ay leeyihiin diyaarad daroona ayaa waxay naga soo weerartay dhanka bariga Yaman xaggeeda, laakiin waa ka hortagnay iyadoo aan la gaarin in seeriga digniinta la yeeriyo dadka kala cararaan ayaanu ka hortagnay leeyahay. marka laakiin maxaa ku xigi doona marka ay diyaarada noocaas yimaadaan? gantaalkii ayaa soo socda, jugta culus. nimanka marka iyaga iyo Iiraan waa isku kaarto, diyaarada yaryara lagu soo diraa, marka ku wareerto alaabta iga qaba lagu dhahaa. marka Falastiin laba iyo Zulfaqaar iyo alaabahaas lagu soo horgufaa. marka aragno wararkii ugu dambeeyay sheekada wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan oo soo kordhay ciidanka Israa'iil waxay ka hadlayaan inay ka hortageen diyaarad daroona oo ka timid dhanka bariga oo markaa halkaa ay ka soo gashay. ciidanka Israa'iil maanta oo Jimcaha waxay sheegeen diyaaradda daroonka inay ka hortageen oo dhanka bariga ka timid
taasoo la sheegay in markaasi ay halis ku ahayd israa'iil. waxaa la sheegayaa ciidamada cirka inay ka hortageen diyaaraddaas duuliya la-aanta ah taasoo dhanka bariga ka timid. ma jirto in la sameeyey siiriga digniinta ah oo dadka loo sheegay inay khatar jirto ka hor ayaa laga hortagaa leeyahay. haddaba dhanka bariga ishaaradeedu waxay ka wadaan sida warbixinta lagu sheegay in ay ka timid dhanka iyo yaman sida ay sheegayaan. marka xotiga weli wax faahfaahina kama bixinin, ma weerarka weli haaf u ah oo daroonu kasoo bilaabay. sheekadu marka waa hadda, marka wixii cusub oo soo kordha barnaamijyada dambe ayaanu ku eegi doonaa. qadar xayeysiisa kadib lubnaan arrinteedii ayaa kacsan maanta. taageerayaasha xisbullah iyo ciidankii dowladda nagta iska saaray. ma dagaal bilowgiisa xisbullah iyo dowladda lubnaan maadaama hubka dhigistii ay xisbullah diiday. maraykan iyo israa'iil sidee u arkaan, ma ku farxayaan, sidee tahay waxaasoo dhan. shalay ilaa daraad waxaa la hadalhayay shirka golaha wasiirada lubnaan, kadibna wuxuu kusoo gabagaboobay in la ogolaaday qorshihii maraykanka qorshihiis maxay tahay sanadkan inta ka dhiman in xisbullah hubka ay dhigto, hubka gacanta dowladda lubnaan lagu wareejiyo, ciidamada lubnaan meelaha xisbullah ay joogaan xuduudaha la geeyo, israa'iil meelaha ay lubnaan joogta laga saaro, xabad joojin la sameeyo. waxaasaa marka wasiiradii marka shiicada ahaa ee xisbullah iyo matalayay way ka baxeen shirka, way xanaaqeen markii la yiri sheekada maraykanka la ansixinaa. xisbullahna waxay tiri aniga hubkayga ma dhigaayo. golihii wasiirada laakiin intiisii kale way ansixiyeen, waxay yidhaahdeen qorshahaas waa in la meel mariyaa, hubka laga dhigaa xisbullah marka hubka xoogaa looga dhigaa sooma. marka israa'iil iyo maraykan marka sidii ay rabeen hawsha ku socotaa le waxay u tuureen lubnaaniyiinta dhexdooda. israa'iil marka waxaa la aday maxaa ku waarayaba nimankan lubnaaniyiinta iyaga dhexdooda nagta iska saaraya u kaadi. maraykanka marka akhidadaa keenay. marka dad badan oo aqoon-yahanaa reer lubnaana way ka digayaan. marka waxay leeyihiin arrinkaa ka fiirsada, dib isugu laabto. lubnaanow hawalaan dagaal sokeeyo dhibaato horle kasoo baxdeen waayadii hore, haddana mar kale ha gelinina idinkoo cadawiina dhul idinka haysto warka joogaa le. maanta marka waa bilaabatay, soo jimco ma ahayn, maanta waa la isku bilaabay. haddaba marka aan idintuso wakaalada wararka ee Anadolu waxay leedahay lubnaan wararka ka imanaya waxay sheegayaan maanta inay dhaceen isku maaragtay mudaaharaadyo lagu taageerayo xisbullah, loogana soo horjeedo qaraarka ama go-aanka ay xukuumaddu gaartay ee hubka looga dhigayo xisbullah, hubka looga dhigayo. mudaaharaadayaal taageersan xisbullah iyo xarakada la yidhaahdo amal ayaa waxaa la sheegay inay sameeyeen maanta mudaaharaadyo dhowr magaalo oo lubnaan ka tirsan. shalay galab ilaa maanta ayay mudaaharaadyadu dhacayeen, waxaana looga soo horjeeday go-aankii ay shalay soo saareen xukuumadda lubnaan, kaasoo ah in hubka laga dhigayo xisbullah, iyadoo go-aankaasuna uu yahay warqadii maraykanka uu usoo gudbiyey lubnaan oo markaa golaha wasiiradu ay markaa sameeyeen. haddaba waxaa la sheegayaa in taageerayaasha oo wata darajaad naariya waxa la yidhaha ama mootooyin ay markaa meelo kala duwan oo bayruud ah ay ku mudaaharaadeen iyagoo wata calanka xisbullah. waxaana la sheegay inay ku qaylinayeen qaraarkii ugu dambeeyey inuu ahaa mid dabadhilifnimo ah oo xukuumaddu ay dabadhilif tahay. waxaa meelaha qaarna la sheegay mudaaharaadayaasha xisbullah iyo ciidanka dowladdu inay dhagaha iska garaaceen oo ay rasaas isweydaarsadeen. waa bilaabatay mudaaharaad qoryo la wato oo la mudaaharaadayo xisbullah ciidankii dowladda waa bilaabatay. marka waxaa leeyahay haddaan bahashaan hadda laga hortegin khatarteeda way soo socotaa. reer lubnaanow ka fiirsada, gacmaha aada maaragtay isku dilaysaan, dad dil idinkaga baahana meesha joogaa la leeyahy. marka haddaba marka arrinkaasaa soo kordhay, meeshay ku dhammaato marka waa arki doonaa. reer